السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saxaabta khaaliga ah waa walaashiina kaltuun kaafiya. waxaa idinku salaamay salaan kasoo gooda kashii laabta janalka naga fiirsanaysaan waa janalka meel baqare. waxaa idin leeyahay soo dhawaada. maanta waxaa idin hayaa sheeko aniga iga yaabisay, sheeko waalan, sheeko murugo leh, sheeko naxdin sheekadaas waxay ku saabsan tahay nin la dhahayo Chris Watts oo halkaas iyo Mareykanka. waa nin waalan maa la dhihi karaa, wax lagu tilmaami kara maba aqaanib wallahi bilaatla. ninkaas wuxuu suubiyey, wuxuu qabay gabar la dhahayo magaceeda shanaan waxay saaxiib la tahay gabar la dhahayo Nicole. ninkan maalin maalmaha ka mid ah wuxuu ka shaqeeyaa horta hore meel oo batroolka iyo waxaas iyo gaasku ka shaqeeyaa. iyadana waa gabar iska business woman oo dalxiis ma ahan travel gareyso meelahaas wadamada kaleeto wadan ay aadaa. marka maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday gabadhii safar ay aaday. safarkii marka waxay isku raaceen gabadha Nicole la dhahayo oo saaxiibadeeda ah. gabadhii ayadu waxay soo noqdeen habeen. horta hore intaan sheekadaas u gudagelin, ninkan iyo gabadhan waxay leedahay Facebook, social media aad ay u isticmaashaa, Facebook aad ay u isticmaashaa. noloshooda dhan wax kasta ku saabsan waxay soo dhex dhigtaa Facebooka. waxay dhahdaa oh my god ninkanito wixii nolosheeda ugu fiicnaa oo aniga igu dhacaba waxaa waayaba ninkan inaa isbarano. labadoodana waxay iska barteen Facebook, iska barteen way isguursadeen, ilmo isku dhaleen, 2 gabdhood isku dhaleen. midda ugu yar gabdhood oo 4 jir uurna way lahayd. marka markasta Facebook waxay soo gelin jireen siday family qurux badan u yihiin, siday isku jecel yihiin, siday iskula socsocdaan. kaaliska araggan ku dhahay inaba caadi ma ahan. dadka markay arkaan waxaa leeyahay oo ilmihiisa uu laabta u gelinayo wuxuu xambaarsan yahay. haddaa aragtiin waxaa is leedahay maasha allah kan waa aabihii adduunka ugu fiicnaay ayaa is leedahay markaa aragto quruxda familkaasita ka dhex muuqata iyo shacniga. dee kaali iska arag lama soo koobi karo. laakiinse maalintan gabadhani safarka ay kasoo noqotay ilmaha iyo guriga sii joogeen iyo aabahood. safarka markay kasoo noqotay waxay soo noqotay adiga habeen bare soo noqotay, guriga kusoo noqotay. gabadhii saaxiibadeeda aheedaa guriga keentay oo way ka tagtay soo maaha. markaasaan ugu dambeysay subaxii markii la gaaray gabadhan labadan gabdhood saaxiibo saaid ay ahaayeen. maalin kasta marka message usoo diri jirtay. subaxii markii la gaaray message ee usoo dirtay. horta taleefankeeda waaba xiran yahay, qadka wuu ka baxsan yahay, waduu ka baxsan yahay, message uma soo dirayso. shaqana waa la leeyahay subaxii moogtahay shaqo in la aado la rabaa. marka messagekii usoo dirto qof usoo reply garaynayo malahan, qof la hadlaysa malahan. adiga calaa kulli xaal gabadhii way yaabtay. subaxii guriga imaatay, guriga way qaraacaysaa, cid ka furaysa malahan. guriga way qaraacaysaa, cid ka furaysa malahan. kabihii gabadha banaanka yaalaan, geerajka hadee babaqa ka fiirisay baabuurkeedu wuu yaalaa. adiga gabadhii murugo Nicole gabadhii la dhahay way murugootay, way baxday. booliskee wacday, waxay dhahday aniga saaxiibadeeda xaleetaan keenay ma aqaan gurigana qof joogta malahan. waa kaasa waa murugaysanay camal. booliskii imaaday. horta booliska intaa soo bixinay waxay wacday ninkii gabadha qabay, wacday Chris haye gabadhi guriga ma joogtay aawe ma aqaan wallahi bilahi meel ay aaday gabadhi bala uu ku dhahay moogta. adiga waxay ku dhahay booliska waa maya hawicin booliska hawicin hasoo dhexgelinin booliska no way imaanay doontaa. adiga gabadhi booliska way wacday. booliska markuu saas irdu u imaaday oo isagana wuu imaaday, gurigii u imaaday. waa la weydiiyey waxaa lagu dhahay hey xaaskaada ma aqaan guriga ku jirtaan shaqada markaa aaday ay igu dambeysay guriga joogta. guriga dhanaa la barbaaray. ninka booliska kaamiradiisa hataa inta ugu xiranaa laga arkaa. guriga dhanaa la barbaaray, gabadhi ma joogto. basaa jooga, wax noolba guriga la joogo. guriga haddii gudaha loo sii galay sariir aan goglaneyn, gurigii dhan oo isdhex yaalo. jikada haddii la aaday waxaa yaalaan go-yaal oo wax laga bixiyey. meel kale haddii la fiiriyey gabadhi boorsadeedii, taleefankeedii oo weligeed ay ka tegin. qofna taleefankiisa ma ka tago. haddii hoos la aadaa xataa taleefankaada waa qaadanaysaa soo ma ahan. gabadhi taleefankeedii meeshuu yaalaa.
maxaa dhahay cunug tirista daawo oo markasta haddii baxaysa loo qaadaa jirto daawadeeda oo neef iyo waxaasay qabtay daawooyinkeedii meeshay yaalaan guriga yaalaan marka waxaasayta dhan waxay ka dhigeen ma fahmaysaa shaki u geliya dadkii dhan shaki ee kale adi gurigaa lasii barbaaray ninkii la wareystay wuxuu dhahay ma aqaani meelahan ay aadeen maleen waa iska soo noqoni doonaan blabla adi dariskii ay imaadeen dariskana kaamiro waxaa ugu dhegan marka dariska guriga kasoo horjeedo kaamira meesha ugu dhegan cc kaamira la dhahaya ugu dhegan kaamiradii marka waxay duubtay ninkan oo xalay dhan baabuur laba baabuura meesha saan u yaallo waa intusi doona laba baabuura meesha saan u taalo baabuur hore iyo baabuur dambe waa moogta baabuurka dambe marka uu ninkan uu ku aadan marka haddii baabuurkan meesha oo leeyin waa la arki lahaa baabuurkii marka wax uu ku guraa maanta dhan uu ku guraa wax lagu saaraa wurara baabuurkii kale tuuray adiga muddo ugu yaraan saacado badan dee saacadii hadda tama xasuusay saacado badan oo gaariga uu wax saarayo dee guri dhan murarayaa is leedahay intaasay kaamirada duubtay kaamirada markii la fiiriyay madaxuu gacmaha saartay saan ula dhahay oh my god dee qof oo tuug oo la qabtay camal laakiin kaamirada waxtaa samaysa sii tusinin adi bes markii ninkii la wareystay maalinta dambe wuxuu u wacayba maaragtay kuwii oo maxaa dhahay wariyayaasha u wacay laba tiim oo wariya u wacay meeshuu soo istaagay wuxuu dhahayaaba waa idin baryaayaa ilmaheygii xaaskeyga haddaa aragtaan ila soo socodsiiya isoo wargeliya ayaa hala iisoo sheego qofkii arko nin murugaysan wuu iska dhigaaya adi waryaan kugu daalinine maxaa dhahay dee adi markii uu intaas uu hadlaayana wuxuu ka dhex sheegay meesha awal muuse sheegin moogtahay wuxuu ka dhex sheegay inay asagii naagtiisa uu khilaaf ka dhex dhacay oo isku dhaceen oo isdagaaleen uu ka dhex sheegay meesha marka bas intaas uu sheegay oo ninka dariskan uu dhahay ninkaani tusaan aniga ninka dariska mideeda kale xataa wuxuu dhahay aniga ninkaani saan kuma aqoonine ninkaaniitu waa ka shakisanahay camal ninkaan saan ma kufiyo uu dhahay because ninkaan horta hore nin hadal badan ma ahaan haddana suu u hadlaayo waaba yaabaysaaba waxaana hadala maxay tahay uu dhahay ninkaan waa ka shakiyo uu dhahay adi ninka waa la kaxeeyey waxaa la geeyey meesha police stationka la geeyey kooxdii dadka wareysanaysayna la wareegay qolaa lala galay war ala keenay dee waa la wareystay maya aniga maya waxaas familkeyga kuma suubinaay maxaa la dhahay familkaada adiga inaa waxaas ku suubisa kaaga shakisana marka qofka saas la dhaho ma aragtay inuu dagaalamo waay u dhaho mogta aniga see iga shakini kartaa reerkeyga aniga inaa waxyeelo see iga shakini kartaa inuu dhaho asaga wuxuu dhahaa aniga ma suubinin waxaasayto aniga ma aha aniga bal adi ninka si war markii laga deeni waayo wuxuu dhahay aabahaya rabaa inaa la hadlo aabaha martanaashaa aabihiis markuu u imaaday guri qol waxaa waaye dee police station waaye qolka kaamirooyin wax kastaa ku xiran iyo microphone kuma lahano aniga xaaskeyga waa dilay aabihii naxdin xaaskeyga waa dilay ilmaheygay dishayo markaas anna waa dilay oo xageega halkaasaa geeyey meelhebelaan geeyey adi waa la xiray ninkii meeshaa lagu xiray markii la xiray oo sheekada dee waa lasii wareysanaa moogtahay markii lasii wareysto adi markii dambe ultimadii uu qirtay inuu ilmaha dilay ilmaha wuxuu ku dilay bustihii oo meesha markii yaalay uu qabtay uu ku dilay tii yareed horta hore oo 4 sano jirta way rafatay way la dagaalantay ilaa qof nafta ka baxaysa silac looga bixinaayo waaye maskiinteerta wuu rafiyey dee carabkii xataa qanintay ayadoo dhan rafaad si xun u dilo horta taas tii kaleeto ma aqaan markii waa iska dhimantaa oo maleena tii beeneedna sidoo kaleeto uu ceejiyay ayadana bas waryaan ku daalinina dee ninka waxaa lagu xukumay inuu ilmo yaroo wili dhalanin uu dilay naagtii dhashay ilmo 12 sano jir gaarin uu dilay adiga 9 waxyaabadaa lagu xukumay case waxaana lagu xukumay 42 sano 42 sano lama yaro marka dadka markay wax dilayaan Mareykanka iyo meelahaasito maba aaminsanaba waxaanito dadka ay dilayaan iyo ma aaminsano inuu hadhow waa lagu xiraa laakiin haddii la dhihi lahaa waani la dilaa marka qof dishid adigana waa lagu dilaa haddii la dhihi lahaa qof dila ma la arkeen laakiin si 42 sano 4 qof oo dhan naftooda uu
hawada ku cunay reeru wuxuu ka dhigay gablan hooyo gabadhiisa ka qaatay aabo gabadhiisa ka qaatay ilmo yaryar oo masaakiimo oo waxba u galabsan ilmahaas dartooda horta hore ninkaas inay kow laga siiya beed nafta laga qaaday ahayd wallaahi marka sheekadan sheeko aan la yaabay ahayd aabo ilmihiisa dilaayo sababta u dilaayo ninka ilaawo sababta u dilayna waxay ahayd naa kaleeto oo meesha uu ka shaqeynayo maaragta uu ku bartay oo rabay inuu u guursado macnaha markuu kuwan ka taqaluso oo markuu wallaahi waxaan daqon waaye markuu kuwan ka taqaluso inaan la ogaaneyn mu umaleynaaye ya wallaahi bilaa yaab waaye naagtaasna ma ogeen inuu ninkaaniito reer leeyahay ilmo leeyahay wax ay ka warreysay ma lahan markay ogaatay naagtiisiyaa maqan markay ogaatay haddana uura usii leedahay ciidaa booliska soo wacdayba oo la soo xiriirtay oo dhahday aniga ninkaaniito waxaan ka aqaano iyo waxaan ka ogahay idiin sheegaya xiray xabsiga loo taxaabay 42 sano way ku yartaan leeyahay aniga millions years inta noloshiisa ka dhiman hala xiro xabsiga lagu dhex dilo mataaga qofkii qof dilo naftaan way macaanta wallaahi bilaa maskiinto waaye qofkii qof dilaa ilaahayow adduunka raaxa dambe u arkin nafta laga jiro asagana intaas ayaa ku egtahay sheekadeenna walaalahayga qaaliga sheekadan haddaa ka hesheen fadlan like-ta soo badiya like badan aan arko commentiga kusoo qora sheekooyinkan oo kaleeto kaltuune noo soo badi and my new channel is coming soon it's already there actually wuuba jiraaba channelkeyga fadlan subscribe hala soo saaro like hala soo saaro sheekooyinkan iyo kuwo kaleeto badan aa idin soo gelini doonaa inta videogan video lamida ku kulmi doono waxaa idin leenahay bye bye maca salaamo ciao ciao